mahadsanid Tolwaaye. madaxweyne Jacob Zuma ayaa yar waxaan tacsi u dirayaa dhammaan dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed anigoo uga tacsiinaya geeridii ku timid Allah u naxariistay safiirkii dalka Soomaaliya u fadhiyay wadanka Koonfur Afrika ee Sayid Xasan Shariif Cabdullaahi. Jacob Zuma waxa uu tacsi u diray ehelkii iyo qaraabadii uu ka baxay marxuumku isagoo ugu duceeyay inuu samir Yemen Ilaahay ka siiyo. waxa kale oo intaa ku daray in aan la iloobi karin marnaba kaalintii uu ka qaatay xiriirka labada dal ee Soomaaliya iyo South Africa. meedka marxuumka ayaa la geyn doonaa dalka Soomaaliya halka waas qaran loogu sameyn doono sida lagu shaaciyay warbixin ka soo baxday xafiiska madaxtooyada ee dalka Koonfur Afrika. geerida marxuumka ayaa imaanaysa xilli dhawaan ay dalka Koonfur Afrika gaareen wafdi ka socday wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya kuwaas oo hogaaminaya wasiir ku-xigeenka wasaaradda. wafdigaas oo dalkaasi u tagay sida ay xukuumadda dalkaasi uga hadli lahaayeen dhibaatooyinka soo gaara dalka Soomaalida isla markaana looga hortagi lahaa. marxuumka ayaa labadii sano ee ugu dambeeyay ku soo biiray saaxada siyaasadda dalka wuxuuna noqday danjirihii ugu horeeyay ee safiir uga noqda dalka Soomaaliya dalkaasi Koonfur Afrika. safiirku wuxuu hore uga soo shaqeeyay waxbarashada iyo arrimaha bini'aadanimada sida lagu xusay war-saxaafadeed oo soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya. danjiraha geeriyooday ayaa horaantii sanadkan loo magacaabay xilka safiirnimada wuxuuna dadaal badan u galay sidii xukuumadda Koonfur Afrika uga hadli lahaa dhibaatooyinka soo wajaha dadka ganacsatada ee Soomaalida ee ku nool dalkaasi Koonfur Afrika. wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa warka ay shaacisay waxa ay ku sheegtay in marxuumku uu wafka uga tagay xaas iyo caruur. Tolwaaye waa adiga.